waa goob lagu sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu isticmaasho. Haddaba soo nooleynta dharkan alindiga waxaa dib u soo celiyay kooxdani waana dad da' iyo dhalinyaro isugu jira. Waxay ku guda jiraan shaqadooda isla markaana waxay sameynayaan dharka hidaha iyo dhaqanka. Waa dun dhowr nooc ka kooban marka la isu geeyana waxaa dumahaasi laga sameeyaa dharka Soomaalidu ay u taqaano hidaha iyo dhaqanka. waa mid ka mid ah farsamooyinka kooxdan ay ku sameeyaan maryaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay u yaqaanaan. waana shaqo aad u culus waxaana kala sheekaystay qaabka ay u sameeyaan Maxamed Nuur Cadow. Soomaalidu waxay u taqaanaa Maxamed Alindi. waxa uu ii sheegay in shaqadan uu ku guda jiray in badan sameynta dharkana sababahan u soo celinay ayaa ayuu yiri waxaan ka raadsanaa nolol maalmeedkeena. balse Soomaalidu hadda aad uma isticmaasho dharka hidaha iyo dhaqanka oo waxa si dabar go'aya hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu lagu yaqiinay. shaqadan waxa bilaabay xilligii UAC 20 waxa ka jooga 20 sano oo dhan wax isbedel oo lagu qoomo jirto oo ilmaha ataa waxeen ayaa loo hayaa hawshan ibila si hay jirnaa anaga haddana wasi wadnaa oo wax natiij oo leeleen male maan wadankii oo isku burburan oo meel la aadaan laan sababteed ayaa u haana wax oo iska sameeyno oo ku turiyun akhriasana way maan waxaad oo meel noo saaran oo meel oo dirt ugu baxayo jirto. waa aaba jira 75 sano. shaqadan waxa uu bilaabay asigoo 13 sano jira. 62 sano ayuu shaqadan ku guda jiray ilaa haddana waa uu wadaa. waxa uu xitaa farsamadan baray caruurtiisa. fahamkeeda iyo barashadeeda waa mid kugu qaadanaysa ayuu yiri 1 sano. qaabkan wax u sameeynaya ee macnaha godkan loo qoday ayaan wax ka weydiiyay. wallahi shaqadan waxaan bilaabay anigoo yar ali bari adoobay bari 13 sano anoo jiro aan bilaabay. والله إلا هذا تضواتن إيشان سنة جرا ويلي وهاي شغلان وقود جرا المهي وبري سنة وهاي ويلب قد كان أنا وحسنويات أركيزين قريش بس نوية هاي لوهان ساسة ولا المسيحين لوهان كشقيهنا أيضا لوها لك شقيهن شغلان لك مسميس مايو مر مذيقة لو بدلا مر بداحة لو بدلا سيدية ألو شقيهنا لكي لو سميها. markii dharkan ay sameeyaan waxay u iibgeeyaan suuqyada magaalada Muqdisho iyadoo ay sidoo kale ka iibsadaan dadka miyiga ku nool taasoo micnaheedu yahay in dadka miyiga ku nool ay yihiin dad aad u ilaaliya hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay leedahay. waa mid ka mid ah maryaha hidaha iyo dhaqanka ay sameeyaan raggan is abaabulay isla markaana soo saara dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad u isticmaasho. ma ahan shaqo yar oo si fudud ay ku qabtaan waana mid ku qaadata sameynteeda in muddo ah inay sameeyaan. فاطمة عبد القادر حسن شبل TV مقدشو.